asalaamu calaykum waraxmatullaahi akhyaarteena youtube-ka soo dhawaada dhammaan cashirkeenna caawa aanu rabno inaanu dadka ku barno waxa weeyaan waxaa loo yaqaano shumacyada ama afka qalaad lagu yidhahdo candles. Candle macnaheed waxa weeye waa shumac ama astaamo ama sida aan anigu dhihi lahaa lafaha cabirka. Waxaan waa lafo la cabirtay oo loo aqoonsaday inay wax suuqa lagu cabiro oo dunidu ay isku raacday. Dadka qaarna waxay ku doodaan in lafahani ama shumacyadani midabadana waad kala bedeli kartaa. Waxaad ka dhigi kartaa halkan anigu madow uu yahay, waxaad ka dhigi kartaa casaan, waxaad ka dhigi kartaa waxaad rabto. Labada midab inay kala duwanaadaan saad u fahanto markuu suuqa kor u socdo oo inagu cagaarka noo ah, hoos u socdana madowga noo ah. Waxaad ka dhigi kartaa waxay ku xiran tahay background-kaaga ama derbiga dambe ee sabuuraddan isticmaalayno midabkeeda. So hadduu madow yahay cagaarka waa isticmaali kartaa kalar kale ama caddaan baa ka dhigi kartaa haddaad rabto. Hadduu xagga dambe madow ku yahay kan baa caddaan ka dhigi kartaa, kanna madow buu ku aan karaa ama casaan baa ka dhigi kartaa kan madowga ah. Marka shumacyadaas baan rabaa bal inaan wada fahanno. Hadda kani shumacyada cagaaran waxay tilmaamayaan suuq kor u socda. Halka hoosuu ka furmay, halka kor u ku xirmay. Kuwa madow waxay tilmaamayaan suuqu inuu kor ka soo dhacay hoos u socdo. Candle-ka marka waxay ugu yeeraan dadka afka Ingiriisku, annaga waxaan ugu yeeran karnaa shumac. Aad oran kartaa laf. Adigu waxaad ku fahmi karto ama dadka ku fahansiin karto isticmaal. Waxaad oran kartaa lafaha cabirka, waxaad oran kartaa astaamo. Adigu waa astaamo la isku raacay oo sidaasaa loo sawiraa suuqa dunida. Kuwan dhuudhuuban ulahan qaybtooda lafahan hilibkii kuwa lahaa waa kuwaas, qaybtoosana waa laftiyo iska dhuuban ama waa wick weeyaan. Fiiq afka gaalada waxaa lagu yidhahdaa wick, afka Soomaaligana fiiq baa ku oran karta, waa fiiqaq. FG ama fa'ga'daana waxaan ka wadaa fiiro gaara. Fiiro gaara u yeelo marka hadda kadib waa isticmaali jirno. Ereygaas aad baan u isticmaali doonaa. Markaan rabo inaan wax bidhaamiyo waxaan ku qori doonaa FG ama fiiro gaara u bixi. Maxaan ku bixi waxaan fiiro gaara sii weeye. Markaad aragto open, hadda candle-kan oo kale baan rabaa inaan ogaado. O waxa weeye open, waa meeshuu ka furmay. Meesha uu ka furmay. C-gana waa meeshuu ka xirmay. H-ka waa meesha ugu sarreysuu gaaray. Low-gana waa meeshuu ugu hooseysay. Marka waxaa laga hadlayaa hal candle. Candle-ku wuxuu noqon karaa mid bilo ah, wuxuu noqon karaa mid week ah, wuxuu noqon karaa mid maalinle ah, mid saacada ah, mid daqiiqada ah iyo waxyaalo kaloo ka sii maqan seconds ah. Haddaad rabto waxaad ka dhigi kartaa yearly baad soo saari kartaa. Marka nuxurku waxa weeye inaad fahanto waxani maxay yihiin. Marka ushan laftigeeda waxay in la kala fahmo u baahan. Usha cagaaran ama lafta cagaaran iyo lafta madow. Laftan cagaaran suuqa marka ay furmayso iyadu waxay ka furantaa xagga hoose, waxayna ku xirantaa xagga kore. Fiiqaqu iyagu waxay sheegaan meesha u koreysay, meesha u hooseysa. Fiiqu waa meesha u koreysay, iyagu dhib ma laha ku wareerin. Mar kasta iyagu isku si weeye. Meeshooda kore kor bay sheegaan, meeshooda hoosena hoos bay sheegaan. Laakiin labadan waa inaad kala fahantaa. Marka uu cagaarka yahay waxa uu ka furmayaa suuqu meesha hoose, kor buu u soconayaa. Markuu suuqu hoos u soo socdana kor buu ka soo furmayaa oo ilaa suuq kor u ahay wuu soo dhacayaa, hoos buu u soo xirmayaa. Hadduu wiigla yahay iyo hadduu maalin yahay waa isku si weeye. Wuxuu ka furmayaa hoos hadduu cagaar yahay, kor buu ka xirmayaa. Hadduu madow yahayna wuxuu ka furmayaa kor, hoosna waa uu u xirmayaa. Marka intaas waa inaad fahantaan. Kadib baan casharada kale haddana waxaanu ka hadli doonaa
resistant iyo support macnaheedu yahay meesha suuqa ugu koreyso uu tago laga celiyo laga soo celiyo iyo meesha hoose u ka kaco baanu haddana marka ku xiga fiirin doonaa maalinba casharkaanu isna baan dhigaynaa wax hadda systematic ku socno ma jiro waa inaan dadka bal aanu ka fahansiino waxaan inaysan wax weyn ahayn qof kasta uu baran karo uma baahneed shahaado dugsi sare uma baahneed jaamacad waxaad u baahan tahay in lagu bidhaamiyo kadibna waxaa laga yaabaa inaad kuwa jaamacadaha ka baxay ka badisid ilaan qof walba ilaahay siduu u tusa way suuqa ganacsiga kuma xirna aqoontaada waxay ku xiran tahay dadaalkaaga dukaanka nin walba furan kara haddii la tuso sida loo shaqaysiyo wax walbana in lagu bidhaamiyo un weeye marka waxaan filayaa in cajaladani ay noqon doonto ama videogani mid dad quman ay wax ka faa'iidaan haddii aad ka heshay sida aanu halkan wax idinku sawirnay idinku bidhaaminay fadlan noo taabo maaragtay subscribe meesha ku taala please subscribe haddaad ka heshay way wax ka faa'iido ka heshay halkan waanu kaa codsanaynaa waxaa kaloo kaa codsanaynaa inaad suulka noo taagto ama aad thumbs upna siiso kadibna aad gambaleelka ku xirato si wixii fiican ee aad wax ka helayso aanu kugu soo dirno waxaa kaloo rabaa halka inaan badhiyaamiyo aan halkan idinku tusnay suuqani meeshii ugu korreysuu gaaray oo halkaa wuxuu gaaray $69,313 malaha marka la eegayo xagga wiiga laakiin marka hoos u dhacdo halgaa nambaro kale oo aad aragto oo ka saxsan because imika isku soo aruuriyay wixii meeshii ugu hooseysay oo aanu ka cabirayna wiigana waa 9,000 weeyaan waxayna ku xiran tahay hadba exchange-ga aanu ka furnay kuma xirna wax kale imika exchange-gani wuxuu bilaabay shaqadiisa inuu waxaan aruuriyaba July 20 sanadkii 2020 buu bilaabay inuu macluumaadkan aruuriyo kuwa ka dheera jiro ilaa 2017 kin exchange-ga aan mar walba isticmaalayno imika waxaan isticmaalaynaa BingX exchange loo yaqaano waxa laga hadlayana waa bitcoin iyo waxa loo yaqaano tether ama USDT qiimaheeda waa lacagta oo halka ku qoran bitcoin BTC USDT tether macnaheedu waa USDT numberkan kale average ahna waa celceliska suuqan marka celceliska oo yahay qiyaasta dhexe ee suuqan markuu ugu hooseeyay 2020 ilaa iyo hadda 2020 qiyaastiisa dhexe waxay joogtaa 37,000 waa cajiib wax aan dowladi lahayn bangi adduun laga aqoonsan oo qiimaha jooga halkii xabo celcelisiisu meesha ugu sarreysana gaaray marka dadku waa inay bartaan suuqan iyo sida ay u bedeli karto khaasatan wadamada soo koraya oo haddii aynu dad badan oo dadkeena arrintan ay bartaan aanu noqon karno leading countries in Africa in technology. I hope in wadanka laga furi doono iskuulo dadka loogu dhigo ama qolol dad badan waxaan ay bartaan waxaan waa inaanu dadka barnaa sugu tagnaa dar ilaahay noo barnaa waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.